wafdi ballaaran oo ka socday urur goboleedka IGAD oo horkacayo ergey gaarka Soomaaliya iyo Somaliland u qaabilsan urur goboleedkaasi IGAD Dr. Maxamed Cali Guye ayaa waxay maanta kulan la qaateen gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax. wafdigani ayaa waxa ku wehelinayay safiirka u qaabilsan Somaliland dalka Itoobiya Ali Shombe. kulankaasi ayaa waxa uu daarnaa isla markaasina ay wafdigani ugu socdeen isbarasho dhanka golaha wakiilada iyo sidoo kale tahniyadeynayaan shacabweynaha Somaliland ee doorashadii sida nabadda u galay. markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Baasha Maxamed Faarax oo faahfaahin ka bixiyay waxay ka wada hadleen wafdigaasi ka socday urur goboleedka IGAD. isla markaasina waxa uu xusay in ay arinta ugu muhiimsan ay ka wada hadleen ay tahay arinta tukarraq ee xuduudka ah dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland, kaasi oo uu sheegay in hadda ay isla qaateen in dagaalka halkaasi lagu joojiyo isla markaasina ay ciidamada Somaliland ay halkaasi dhaafin. Baasha Maxamed Faarax oo arinkaasi ka hadlayay waxa hadaladiisii kamid waxay noogu yimid baarlamaanka waxa weeye wafdi ka socday IGAD waxa uu safiirkii Soomaaliya ee Somaliland iyo la taliyihii IGAD xagga siyaasadda iyo ambassadorkii Itoobiya Ali oo wafdiga la socday waxaan aad ugu faraxsanahay inay yimaadaan Somaliland. IGAD baynu ka mid nahay arrimaheennana waxaan doonaynaa IGAD inay rool weyn ka qaadato waayo dee wax iyaga xoogaal u ah. waxaan ka wada hadalnay baarlamaanka sidii ay u caawin lahaayeen IGAD. waxaan ka wada hadalnay doorashooyinkii wanaagsan ee loo dhacay. waxaan ka wada hadalnay arinta tukarraq oo hadda cusub. waxaan u sheegnay wafdiga inaan Somaliland halka ay joogto ayaan dhaafin dagaal dambana ayaan dhacayn halkaana ciidamadu joogayaan inta la wada hadlayo in wada hadalay Somaliland iyo Soomaaliya la bilaabo IGADna ka noqoto rool weyn ka qaadato. waagi hore rool weyn kuma ay lahayn laakiin hadda waxay diyaar u yihiin inay qayb weyn ka qaataan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaybta ay ka qaadanaysaa IGAD waayo iyaga aad inoo yaqaan oo dhaqankeena iyo dadkeenu sayahay og. marka aad intaasaan ka wada hadlay. dhankiisa Dr. Maxamed Cali Guye oo isagu ah ergey gaarka urur goboleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland wafdigani hogaaminaya sidoo kale waxa uu sheegay inay mas'uuliyiinta golaha wakiilada ay ugu yimaadeen isbarasho isla markaasina sidoo kale waxa uu sheegay in ay shacabweynaha Somaliland ku hambalyeynayaan sidii wanaagsan ee doorashada u galeen. To congratulate the people and the government of Somaliland for a successful election and inauguration, and also ugu dambeyn halkaasi waxa ka hadlay safiirka dalka Itoobiya u fadhiya Somaliland Ali Shombe oo isaguna sidoo kale faahfaahin dheeraad ka bixiyay kulankani wafdigan ka socda urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale waxa isaguna xusay in ay qayb ka noqon doonaan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo iyagu qayb ka ahaan doonaan wada hadalladaasi. wafdigani ayaa wax iyo hambalyeyn ay noogu yimaadeen inay hambalyeeyaan hoggaankeena cusub doorashada shacabka Somaliland galeen ee nabadgelyada lagu kala qaatay markii shanaad xukunka lagu kala wareejiyay oo ku sida uu runtii qiray in ergeygu ay ku tahay gobolkan aynu ku nool lahay ama qaaradan aynu ku nool lahay ama wala oran karaba caalamka inay ku tahay mucjiso ku cusub oo wadan yar oo aan la aqoonsano intaas oo awoodiisu ay soo aan ciidan ka taageerin uu ku guuleysto inuu sameeyo taa. waxa kale oo socodkooda kamid ahaa sida ay uga qayb noqon lahaayeen wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo runtii kolka lagu noqdo Turkigana uga dhow Yurubna uga dhow waayo waa IGAD waa gobolkan ku nool lahay waa deegaankeeni waa dadkii aynu isku xulafada ahayn waa dadkii aynu isku gobolkan dhaqanka iyo dhiigayna wadaagayna. marka inay mushkilada Soomaaliya iyo Somaliland ay tahay IGAD problem ama mushkilad IGAD leedahay xalkuna uu ka yimaado IGAD. waxay maalin dhaweyd kulan la qaateen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi isla markaasina waxay shacabweynaha ku hambalyeeyeen sidii wanaagsaneyd ee ay doorashada u galeen. Boqor Axmed Cabdi Somali CNN magaalada Hargeysa.